يا dadka ku dhintay ceelafweyn inuu naxariista janno ka waraabiyo kuwa dhaawacay in la haybayo waxaan leeyahay dhibaatada hala joojo dadka ka faa'iideysanaya dhibaatooyinka waa dad wada dhexdii isku dagaana muddo 4 sanadood socotay tanaasul badan hala sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu Puntland waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kasta oo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxay la kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliyo wuxuu ka dambeeyo orag inta markaan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay goorsidii garxajisay iyo timi salaadeyntii iyo boqoradii waxaanu heshiis ku galay in nabad la helo kow number 2 waxaanu heshiis ku galay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku galay in wada hadal la furo jabhadan Justice Equality Movement dulmidiid waxay u taagantahay jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eldariiskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof warta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina Hargeysa qabatay qaybina fadhido argaabo oo ay suurto galin waayeen arrintii aan ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas'uul ka noqon doonta haddii Allah yiraahdo inanka yar Cabdiraxmaan la yiraahdo ee suldaanka ee hore u aflagaadeynayay boqorada ee jaaliyada aflagaadeeyay aad iyo aad baan jaaliyada uga xaalsinaya arrinta ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waa sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doona haddii Allah yiraahdo wuxuu ka shaqayn jiray wuxuu ahaan jiray dib loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsigani halkan fadhiyo inuu xirsigani I don't know inuu wasiir tifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhada meel walba